aad ka tasiirtay ugu dhalisana waxay ahayd in aad kugu bagana haween walaalayaal kelmadda ahayd dad maanta wax ibnu aadan ka arga baxo wixii ugu horeeyay maanta ka hagar bixin oo awoodna u haysan in ay kaga hagar baxaan maarta baahidaas ya ibnu aadan wixii ugu horeeyay ay in ka hagar baxo xitaa maanta kinoo fala capacity in maartay ka hagar baxaan ila orinayo biyo aan haysan inay maanta isdilaan wallahi waa wax laga qurux badan yahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dameerele waa isku dan dad midaatay oo diin iyo dub iyo dhaqan iyo asal inta wadaaga inay maanta wax si fudud loo dhameyn karayo ay diig ku daadiyaan ina laga fiican yahay marka waxaan baleynayaa sheekha waxaan u maleynayaa dad badan oo inta dambe baraha bulshada demo diplomacy demo kelmado xumaan ka talisa kelmado oo sheekhaasina u qalmin inta badan baraha bulshada la fadiyay j'espère que maanta hore loo yiri min hurda wala kicin karaayis laakiin baa lan isnabaya lama kicin karo inay hadid xalay tool sheekhu kelmada quruxda badan la u yiri inay hadid ku haran ban u maleynaya j'espère sheekha aan jecelahay ya Abdurrahman barkhad good waa ciyalkii xaafada waa sheekhini aniguna sigaaraan u jecelahay sigaara waa reer kartoon anna kartoon baan ku dhasho xundurtayda kartoon ku aasin marka sheekhayga sigaaraan u jecelahay ilaahayna xafido hadduu videoga maqlana waxaan leeyahay sheekh Abdurrahman barkhad good waan ku jecelahay ilaahay dartii inama nalcibukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shakuura ilaahay dartii waan ku jecelahay waxaan u malaynayaa dadka baraha bulshada limo deplace la fadhiya ee qabyaalada iyo xumaanta ku dheehan tahayna waxaan leeyahay ilaahay soo hadiyo waxaan jecelahay inta uu xalay sheekhu Twitter ku yirina inaad ku qanacdin dowra loo yiri nin hurdo wala kicin karaayo baa nin isnabaya lama kicin karo isnabaya lama kicin karee kii balaayo raadinaya iskaga u talay laakiin dadka maaragtay rabay inuu sheekhu hadlo dadkii inay wax fahmaan doonayeen waxaan u maleynayaa xalay inay wax fahmeen waa kuwii nin ay wala soo celin karaa يا ساكن إسنابيا أم بنين بلايك الغادين كايس كذا وطلع قالوا السلام علينا لكن شفت الشيخ حالين تو هذا كان ماشي سيد جاي وأنا كم هتسينه وأنا جعل الله هذا العيال كم قادر لنا هاي كارهانك الشخصيات اللي كارك على هي إلهي الشيخ إنها نحفظه جسفنا ضدك شركة رادينية ومضى واحد حن كده دعيني شيخ وحنا نهينا كده جينا ضدك أنت ضمن واحد حن براه بسيد كارك أنا واحد لنا يهدد إني تويتر كحالي أي كوكنا عين أيانو مالينا جسبير إن شاء الله خير تامر كان كجدبو والله ما أنت أن سيجارة دونينا غير الحوين ورطوا ولا لها سمرونك يو جارهان عيسو وضد سلاء سان مركز طبعا عرف كقول دكتور وما ضبطنا ولا لها يبلشنا براه بلشنا كالنا يكوع عليا والله ضد مداتنا هاي حقيقة مركز الأجنة ولا على العقل مركز الومي زمنا صومال هوري وتري برورت أرجع كوي شيء sheekadani sayla waa sheeko gundeer sheeko xeer ciise ayaa lagu xusayaa sayla waa sheeko gundeer aqli marka lagu daro xaqiiqo marka laga hadlo ilaa iyo maalintii ciise ogaasiyas ilaa joogtadina ogaas mustafa waxaan u maleynayaa waa kii 19aad intaaba sayla baa lagu xusay Soomaali dhamaanteedna ay imi jirtay أيش أوجاس كاس أسود دقيق جرتو حاجة بريز كلوجو العرج وضمبين أوجاس مصطفى مركي لوجو على مساري لو حيري جيس كأفريقيا غير كستبوا ويجوين سيبا سمرون كانوا ويجوين يساقون ويجوين مركا ولا رايو بلايد المنطقة كلها عميسة أرنتا بوليميكا كده سوا وحكله وباف كله عقل مركي الومي زمان ولا رايو شيء كذاني وبروت أرجع كوين شيء كذاني وبروت أرجع كوين ما تلمين تاع عيسى وسوهيتنا ولا ليال دولمين صومالي أردن سوهيت حار عيسى بوق إنسكو لقى عقال صدي هدي جبوت له جوجل حار هدي أرجس له جوجل حار إيه هدي سيل على جي إيه هدي مقدش اللي جي إيه هدي بورب اللي جي بقى والمين صومالي سوهيت والمين صومالي سوهيت
ciisana maadaama Soomaaliya inuu meel kasta gogol dhigto oo nin walaalkiyo Soomaali weydiisana xaq buu yahay marka inakoo dhaqan ahaan sida u nool sidana weligeed ba ay ahayd in maanta arrin fudud la boombooniyo wallahi waa wax laga qurux badan yahay aqligana waa arrin taabanaysa waana arrin wareera anigu waxaan walaalahay ummadda inaa la baadhalin ummadda inaa la baadhalin ummadda masaakiinta ee maanta baqtigu xalaasha u yahayna walaalahay inaan laga dhigin dadkii xaabada lagu xaabo inay noqon dadku soo karsamo si fiican u baxo xaaba lagu guraa war ummadda xaabina laga dhigin anu maanta waxaan arkayaa walaalahay waxa maanta iltuufay waa aqoonyahankii iyo siyaasigii Soomaaliyeed aqoonyahankii iyo siyaasigii Soomaaliyeed ayaa maanta iltuufay haddii maanta dad caafimaad qaba oo dan gaar aan eegin oo ummadda ku guureyn ay maanta hoggaanka noo hayaan wallahi mashquulinkaasi may dhacdeen baska aqli gal ma aha libin Soomaali isu hoyatay oo meel kasta uu Soomaali ku nool yahay ay gogosha u furan tahay ina maanta maramo laga keeno waa wax ka waaweyn waa barorta urgaca ka weyn ana uma malaynayna ummad walaalihiino gadabuursiga inay arrinta dhibayso baska shalo ugu dambeysay ogaas Mustafa markii caalami saalay ogaasadii beesha Samaroonka caqiladoodii iyo siyaasiyoogii inta maaragtay sayla way joogeen ogaaskana uu duceeyay marka maanta waxa hadalka keenay si farimo aan ku rayaab waa wax maankeena dhaafs waa su'aal da'weyn oo baahan maxay madaxa daalinays marka aan waxaan arkayaa waxani waxyaalaan tafaasiil dheer u baahan ayaa ka dambeeyay war ummadda hala dejiyo beesha walaalihina Samaroona waxaan maanta xagan baa ku diraya war walaalahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay nabadda ha laga shaqeeyo ciise waa walaalihiin waa dad ad wada nooshihiin waa dad ad wada dhalateen libinta maanta ciise u soo hoyatana waa tu walaalahay ninkan idin soo hoyatay marka wax fudud inaan wax weyn ka dhigin Soomaali dhamaanteed maanta walaalayaal gaar ahaan geeskan Afrika waa ninka arkay walaal amxaar baan sahaynaa oo Soomaali maanta dibta ugu haydarkiisii oromo maanta Soomaali dibta ugu hayso ninka arkay marka walaalayo ma inta dadka aad iska caabin lahaydeen ayaad inikii isku soo noqoteen wallahi waa wax fool maanta Soomaali hadaan ay cadowgeena badan waa ninka arkay Ethiopia waxay maanta ku taamaysaa waa badda sidii u qaadan lahayd si badda ay u qaadatana waa in ummadda la isku diraa horay كلمة بالله يا ولا رأيه أن بري يوتيوب كده ملش بس سؤال ويدي دولة الصومالية كورن بالجين مركز عندك الصومالي الدولة وما نقارنه بيلان ونقارنه مركز عندنا كرمنا بيل بنقول ديل كرينا هذا الكاس ولا رأيه وهذا الأسبوع إن هذا الكلام دوحة ما تا أرنتن جيس كأفريقيا كل عميسة يتوبي بقول كيف سجاش الروق بكل هذا si ay si fudud dadka uga qaadataan waa in ummadda fudud la isku geliyo deeminimo marka la waayo ay ummaddu midoobi weydo si gaara ayaa loo xisaabtami doonaa ayna u noolo dhaqmi doonaan walaalahayo haddaan bari kada go'no ciise isku taago Samaroon isku taago isaaqi xajar isku taago maxaan awood yeelanayna bari reer baan noo dil karayn reer baan noo dili doonaan runa been sheekadana dibtana kamay dambeyn kamayna horeyn depuis nika abi depuis Ethiopia waxay khabeeysay ilaayo mililig ay ku taamaysa ay banaanka soo dhigeen ee badda Soomaaliya ay rabeen depuis Ethiopia arintaas ay shaac qaadaba dibtu waa bilaama dadkaasi bardambe iska ahaayeen nolosha iyo dibta haysatay iskala tacaadilayeen ayagoo sidii kala waxaysan depuis hawsha ay bilaamatayba Ethiopia dhibaato nagu bilaamatay marka waxa la walaalaha beelaha Samaronkana deeanu ilaahay maalintii caaqileysta waxa weeyga maqrij Samaronku waa dad ehlu cilmiya waa dad ehlu aqliya marka walaalahayo beesha Samaron maanta waxa la walaalahayo dad islaamanahay war caaqilkii Samarono
والعقويان كي سمرون لوي قالوا وان كهلا توجي كسك هلا مالو دلتا غاركا iyo caadifada iyo qabyaalada han u dhigno war mashaqada dhabta ah ee ummadan haysato hal laga hadlo walaalahayo dadkani dagaal uma baahna walaalahayo samaroon maanta inuu dagaal galo dan ugu ma jirto kaligiina samaroon maanta haduu isku taago farifool ma meedo kadaalika ciisa haduu maanta isku taago farifool ma meedo gamcaad ajiib ku qabtaan marka beesha samaroon maanta waxaan ku waaninayaa waliilaahay laga boqo samaroon waxa lagu yaqaan dad aqli leh dad aqoonta u saaxiiba wadanyarada maanta la waalayo ee qoriga loo dhiibayo ee caadifada iyo qabiilka lagu awrkacsanayo war hal badbaadi tanina kulli baani maay samaroon aqoonyaankiisi maanta waxaan leeyahay war halla kaska halla maal kulli waxa ka dambeeya waa siyaasi dangaar watee oo qabiilku awrkacsanayee war wixii xunaa la iska qabtay ummadda wanaageegana hal laga shaqeeyo taasi waa baaqan u dirayo beesha samaroon isaaqay bay noqotay iyo hargeysa iyo madaxweynuhu Soomaaliland ciroy maanta waxa halis ku jirta waa dawladdaadii ruuxu beenana been aqoonsi adaraadisiin baad sheegaysiin maanta ayihii Soomaaliland baa qariiq ku jira hadday labada beelood maanta isku dhacaan ee samaroon awoodii dawladnimo ee raadinayeen ee aqoonsi ahayd ayaa walaalahay halis ku jirta isaaqna maanta waxa looga fadhiyaa si hadafkooga weyn ay wataan ugu hirgalo inay ummadda kala dhexdhexaadiyaan sida annima inay ummadda kala dhexgalaan oo arinta dabka hulcamaya ay damiyaan ayay dani ugu jirtaa haddii maanta samaroon isku saado awleysteen la baxo hadduu maanta ciise salal noqdo dawladda Soomaaliland xagee martay markaas يوغا بلو لتا سوماليلاند سوماليلاند waxay noqonaysaa dawlad jiri meesha dawlad beeleed bay noqonaysaa dawladda Soomaaliland mid waxaan ku boorinayaa ana ku waaninaya walaalahayo Afrika maanta waxa baabi'iya markaste waa awoodan reer isku soo ururinayo waa hantidan reer uu gacanta ku dhigay ummadda walaalihina samaroona maanta ee boorma ku nool waxay ka cabanayaan waa xaqiiqad taala walaalahayo Soomaaliland saami qaysi daba kama dhaco run marka laga hadlo saami qaysi daba kama dhaco maxaan ku raa dakhliga boor Soomaaliland soo galaan u jeedaa walaal ciisana waa ka haraadan yahay samaroonna waa ka haraadan yahay marka dawladda Soomaaliland ilaahay waxaan rajaynayaa inay arintan ka ilaahay ka hota hagartar maanta taala ilaahay ha dhaafiyo tarantoonka soo galay ilaahay ha dhaafo dadka soo galay ilaahay ka badbaadiyo kadibna dawladda Soomaaliland waa inay dib isku noqotaa remise question walaalayaal nin dad qaadaba la xumbo iska dadku waxan ay qabiilku ugu roorayaan waa markay cadaalad waayaan dadku haday cadaalad helaan oo nin kastaba xaqiisa garaamkiisa weelkiisa meesha uu degay qorofka caana loo geeyo walaalayaal way wax ma raadiyo dhibaatada ugu weyn ee maanta Afrika baabiinaysa hawayaan waa saami qaybsi madaxweynaha la dooran afartii Turkiga isku soo weerin hantidii dalkeen noqon iskaga yeelanaya dal idil ayaa noqonaya dal reeriyeesho Soomaaliland xaqqa markay noqoto anigu personal ma olahayahan uma arkid qaranta uma ark inta badan okay doorasho way dhacda fiican si fiican baa loo kala baxaa laakiin awoodii oo reer baayas runta marka laga hadlo marka walaalahayo isaaqana waxaan ku boorinayaa war arinta marka ka badbaadin walaalahayo gunteeda u dhaadhaca dadku intuu soo galin baa lagu moosay war saami qaybsiga dalka Soomaaliland sida ay tahay ka yeela dalku isaaquna maaha dad kale aan la degan inukuna ummadan la nool xaqiiqa siiya sida baan ku badbaadaysi inukuna ku badbaadaysi waxa aad ku maaragtay miniyaysiin ee in maalin la aqoonsadana peteter haduu hirgalaba sidoo nuugu hagaagay waa taaquraad laakiin walaalahayo inta saami qaysi dab jiri inta ummad wada nool ay maaragtay awood ay qaybsameen walaalahayo dhibaatadaas dhamaan mayso qof kastana markuu xaqiisa waayo wixii xumaabo doonay qabiil la oranay ayaa tolaay buu noqon ayuu oran laakiin qof kasta xaqiisa hadii la siiyo tol raadin maayo qurba joogtana mid baan kaleeyo walaalahayo lacagaha la ururinayo ee leeyahay hub baa la siin iyo hebel baa lagu famgoray war ilaahay ha laga boqo qurba joogta waxa la waradad ummadda ku qabanaysiin
dhibaatooyin kale oo fara badan baa dadka haysta dadkan beri way iska heshiinayaan waa dad isle xumaan inaan ka shaqayno dani uma jirto qurba joogtana waxaan leeyahay war inkuna intiina dabka intiina damiya oo ilaahay ha laga boqo dad waxaad arkaysaa maanta kula karafaad ku soo qoran waxaan dhaanahay professor Hebel haddana waxa uu ku hadlayo habaan masuuranayt kal firaash mafsuus wallahi ciil ku qabanayo war waxaan aqoonta uu sheeganayo iyo sidoo hadlay way sida Allah qurba joogna mid baan maanta oranay war qurba joogay dabkiina damiya ininka haddii ilaahay niicaanayo Yurub aad joogtiin dadkaas baqtiga u xalaala dhulka maanta Yurub in koostimada wada gadanay aqalada qurux badan fadhino walaalayaal waxa aan ku helay waa cadaaladda meel cadaalad taalo ayay nolol taala eeg aqliga walaalahay ka saala maanta Afrikaan baan huwa madownahay diin ma wadaagno qolo ma wadaagno xuduud ma wadaagno maanta waana ka haddana ku nool waxaan dhulkeenii ka weynay aan maanta xaggan aan ka helay su'aasha qurba joogto waa inay isweydiisaa سؤاشا قرب جوجتو وإني سويدي سوالة ليال ومقدس سيدين ما تردوكي أن كل شيء وحا أن كواي ما تردول قال أنو غهلي سؤاشا من السويدية واي بس سؤاشا سواحا أدى السويديو عقلي قام فكر بعد لنا جوابتو دون سؤاشا حويا ولا لا حويا ما أنت عدالة ميل أي تالو أي نولو تالا عدالة ميل أي تالو أي نولو تالا haddii maanta dhulkeena cadaalad la sameyn lahaa oo qabyaalada aan dhaafi lahayn hantida la boobay aan dhaafi lahayn maanta dhulkeenu Yurub waa ka qurux badnaan lahaa cadceed baanu haynaa waxaanu haynaa bad waxaanu haynaa khayraad adduunku wuxuu u baahnaa maanta waa dhulkeena laga helaa laakiin dad ma jiro maalin dhow waxaan arkay professor nin Nigeria ayaa kelmad cajiibayeen wuxuu yiri haddii buu yiri Japan dadka degan Afrika la keeno Afrikana Japan la geeyo Japan maxaan ku raraa Japan Afrika la keeno Afrikaankana Japan la geeyo maanta Japan haddii Afrika la keeno Japan sida ay qurux badan tahay Afrika qurux badan marka bulshada xaween walaalayaal almuhim walaalayaal khayraad baan leenahay iyo dhul baan leenahay hanti ma aha khayraadku iyo hantidu waa dadku maankoogu kabco dadku hadduu maankoogu kabco dad jiray noqon karaan Japan maanta waa ninka arkay dulgariid bay leeyihiin khayraad ma leh haddana maanta waa wadanka afraad iyo wadanka saddexaad ee adduunka ugu dhaqaale badan hay toddobada dal ee adduunka ugu dhaqaale badan maanta Japan ku jirta waa ninka arkay sanad kasta tsunami ma gala dulgariid baa ku dhaca khayraad waxay leeyihiin ma jirto laakiin maankooga dhisantay ha marka anu waxaan leeyahay walaalahayo war maanta dadka maankooga hala dhis qurba joogna waxaan ku boorinayaa war ummadda dadka laga daayo nimcadda aad maanta Yurub ka heshan dukeena waa la sameyn karaa laakiin kasku waa inuu kabcaa maanku waa inuu kabcaaban leeyahay ciisana mid baan oranayaa ciisow horta ilaahay ni soo haday ilaahay khayrkaani waafajiyo ciise tolka ciise weyne haddaan u soo noqon maanta waxa maankaygu itusaya ciise maanta hal doorkeeni baa ilduufay siyaasigeeni baa ilduufay aqoonyahankeeni baa ilduufay dan gaara iyo mashaqo gaara arrin gaar ilaahay ku salad maanta anu ciise waxaan oranayaa tolkay war arrintaas ilaa haday naga dhamaato ciise wana dib isku noqotaa war xagan oramaan ishaynaa war xagan cafar bay dhibaato taala iminkana waa sheeko samaro wax bilaamaysa تاولا لهنا سمران هدي إلهي هنلا قبته إني كان هنلا قبته هدي تاسي هجاكتو وين هجاك إن شاء الله خير بعد لن دوني إن سوينا دوسنا وقاسو يجندو وردي هسكون عيس أنا ما توحن حقا ورانا يا دبت عيسط هاي ستا دبك طولك عيسى وين هاي ستا ما هضد بسو دولي ما هرير على ساينو دبت ما تعيسى هاي ستا وإنك ويا سياسيني waa ilduuf walaalahayo siyaasigeenii waa noqday danaysta barada aniga bas waxba iga megal taamaanta Ethiopia hays shalay ragii dibta maanta afar laga haysata saxiixay rag ciiso furlabay hay madaxdii shalay toole markii malas saxiixday ee maanta dhulka afarta isku hayna kulal maaratid mashaqada lahayd ragtulkeena ciisahay
marka Djibouti noqotaya amba Somaliland noqotaya amba Ethiopia noqotaya ciise dhibaato haysata ciise siyaasigiisii baa noqday dictator miran siyaasigiisii baa noqday maxaan cunaa ciise waa inuu dib isku noqdaa taa Djibouti na haysata waa ninka arkay walaalahayo taa Djibouti haysata umba meel kana haysata mushkilada maanta ciise haysatana waa Djibouti ruuxu beenana been marka aanu ogaaska iyo gandaa waxaan ku boorinaa war ilmaadareeyaa reerka maanta ininka ugu weyn de lagu jiri maayo ilaa qiyaamaha ciise bulda iyo ciise soo kulaala aqli ma aha walaalaayo anu maanta gandaa iyo ogaaska mid baan leeyahay ruuxaas aqli ma aha ilmaadareeyaa dagaal ciise ilaa qiyaamaha ku jiri maayo il faut trouver une solution problemka maanta na haysta ciise hadana leadership keniba noqday catastrophe وتا ما أنت إسماعيل عمر نجاي ست هاي تا إسماعيل عمر نجاي ستون بعيسى ملك استايست نكا ما أنت نو إتالوين تركينا ما سنة إسماعيل عمر جيلنا إلى هاي كسكي سوحو كدجاي عيسى دي لانو بحنيك أو دجا عيسى دي إسماعيل عمر مش شغلة ما أنت ملك استعيسى هاي ستنا لبو كل ليه مركا عيسى ورئيسه ورير كان شدافنا هدي وقت بقى إمدي إن اسكنوا قلنا إنه عيسى سؤال اسمه ديو أو يرادو ورديلم كان سيان وقبحها مش قدر مال كستعيها هي ستسيان وقبحها دفتو حقائق إيمانيسا كأن دورنا إن إيمانته قال أن أدي من إنه وإنه نقضاء غف دمت أمضى كشغين كرا معها كو دفت أمضى إنه intaan hadalka ka baxaya isoo siilaa way dhamaan laakiin hawl baa indii taala ilaahayna khayrka hana waafajiyo tulka ciise weena ha noolaadaan meel kasta oo joogto